قبيلة أورون إسوتنا إن أنت رايون قبيلة أورون إسوتنا تلكو بينو لو تايلين محاتقان تلكو بينو لو تايلين محاتقان سويا ويان لو تسمعني محاتقان سويا ويان لو تسمعني محاتقان لو تسمعيا محاتقان طريقة هيا تقان ترون تبعطو كفتي هيا تقان تلبسا ويدو دعدي هيا تقان ترون تبعطو كفتي هيا تقان تلبسا ويدو دعدي هيا تقان تلبسا سيكتو لنتي هيا تقان محاتقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورئيس قارن كقاضي قدوميها ركتة جناعسك سومالان محمد شكري أو كسوغان ودك جرماني كان قريب قال الشركة جناعسك الرئيس سومالان يودح ودك جرماني كفر من مقالة بارلين ودك جرمالك قدوميهم كسودونا وربهنتا ودك جرماني كردوان وقارن واحد دوننا نكويدينو بل واحد تصاين تفاصيل ديرادة نقصها إن حبس بالصعد شركني. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو مهتمتنا مركز كوباد. رنتي إنكستو جبدي لا أقبل كراقب كشركة ودعي. هذانا وحاجات ترنتروينا كعكوا وكسر دعي. لما أنتودنا سلك كهيي في سياش سيد الله لله. ودكتور دالك شرمالكو سفارتكم على سوماليلاند سوماليلاند لما aqoonsano baasaboor ka Soomaaliland lagu bixi karo ganacsatada Soomaaliland baasaboor kala gaar ay sitaan arintaas waxay keentay runtii safaaradihii dalalkii ugu dhawaa Jarmalku ku lahaa fahamsiintooda sida ay ganacsatada Soomaaliland u silahay fiiso mar walba fiiso processkii taagan ayaa timekii shirka la qabtay uu imanayay uu dib u dhacayay dabadeedna taasaa keenaysay in haddana waqti kale la qabto nasi wanaag markii dambe waxa runtii wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay ku invite gareysay dalka ku-xigeenka safiirka Jarmalka ee dalka Kenya markii ay timi runtii gabadh bay ahayd si wanaagsan ay u fahantay mushkiladii iyo caqabadii hor taagnayd shirka aadna way u dareynayeen Jarmalku inay halkan shir maalgashiga sidii Soomaaliland loo maalgashin lahaa iyo fursadaha maalgashiga Soomaaliland ka jira maxay yihiin inay dadkooda ay ogeysiyaan oo kaligeena guud ahaan baad mooday marka inay ku jahaysan inay dalalka Afrika wax badan ay ka ogaadaan oo ay ku jahayaan dadkooda inay maalgashadaan sida awadeed adoo markii dambe runtii waxyaabihii carqaladihii keenayay inuu dib u dhaco way xalismeen waana fududeeyeen saddexdii safaaradood ay khuseynaysayna muxuu ahaa waa lala hadlay dabeedna si fudud ayaa loo helay marka arinta ugu weyn runtii arintaas ayay ahayd duuligiisa طبعا صار شهادة الكتاب الباشا كسر دعي كم دبس وقبصني بعد من هذا شرائع كسر غير كلي شرائع كسر غير كلي سيد المقدم واحد جنيني يجوا هذا وتهذا السومال اللي كمان حلقة شرائع السومال اللي شرحية وحيابا يقولوا من القيان مم وقتها مغمض يعني مو على الدور في شرائع السومال اللي أنا وحسوس صار كذا سوق هذا شيء إن نهارتها Soomaaliland waxay leedahay goal ay doonayso in xaqiijiso ama ujeedooyin bay leedahay private sector iyo public waa isku ujeedo anagu halka waxaan u joognay ma ujeedada xaqiijinay ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliya ku wada socdaan wax weeyaan inaan iibino fursadaha ama badeecad Soomaaliland ay leedahay oo u baahan marketing iyo suuqayn
ama ha ahaato fursado maalgashiyo Soomaaliland ka jiraan u baahannahay investors iyo maalgashadayaal aan u baahannahay labada ujeedo ayaan doonaynaa halkan aanu ka xaqiijino kuna qancino muxuu ahaa maalgashadayaasha Jarmalka iyo cidii shirka ka soo qayb galaysa shirkadaha طبعا dowladda qofka ganacsiga had iyo jeer dawladdu de si guud bay u tilmaantaa laakiin mesela for example imaka shirkadaha prestige ka jeedinaya qofka maalgashada halka Jarmal jooga wuxuu ka dhax akhriyaa markuu qofku company-giisa iyo history-giisa iyo golosha iyo guushu gaaray uu ka waramo waxay qancinaysa soo dhaweynaysaa ku qanciisa inuu yimaado dalka had iyo jeerna waa laga maarmaan qofka maalgashadii markuu dalka la tagayo inuu helo partner xogogaala oo loo kala oo wax la qabsado sida awadeed baan ugu dadaalay in muxuu ahaa sector kasta oo dalka ka jira cid matasha in la helo inkastoo muxuu ahaa meel muhiim ah dad loogu tala galay ay runtii habsaameen ama u suurtagal wadeen fiisihi ay helaan waa tahay maxamed shukri gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland in marka la soo xolayo ganacsatada ka qayb galaysa shirarka noocan oo kala in waxa nagu maqaalaa in shirkada reer Soomaaliland oo iyagu daneynay shirkan ay ka soo qayb galaan in laga reebay qaab noocaas soo xushaan anu waxaan ay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland iyagana accountable wadaagsan tahayo waheed madax bannaan oo ganacsatadu leedahay maamulka joogana iyaga doorta oo dawladdu wax faragelin ay ku leedahay ma jirto waxaananu taaganahay dantooda iyo wixii maslaxadooda wixii fursade ama anagu aan soogaan ama dawladdu ha nagu wargelisi si siman baa loogu gudbiyaa laba siyoodna waan ugu wargelintu way u dhacdaa kole membersku de canaawintoodaanu haynaa marka si gaargaaroo toos oo qoraala invitation arrinta caynkaas jirtay ma danaynaysa iyo xilligaa kusoo jawaaba kamina walba la geeyaa xafiiskiisa warbaahintana waan uga sheegnay fursad caynkaas sidii doonaysaa danaynaysa ka qayb gashay xafiiska ay timaado si loogu sheego waxyaabaha looga baahan yahay marka ma jirto cid aanu ka reebnay iyo cid aanu si gaar ah soo xulnay toona ma jiraan time baa la siiya bixiya marka timeka hadii hawsha aanan anagu wadan hadii mesela arrimaha qaarkood dee annaga ownerkiyo qabanqaabina oo waqtiga iyo xilliga ku habboon annaga goyna waxyaabaha qaarna dee dawladda ama shirkado kale dibadda cid kale la timaada marka qorshaha ay dee noola yimaadaan baan raacnaa marka xilli baa la bixiyaa xilligaa ciddii ka soo jawaabtay ee muxuu ahaa applicationkeeda keenta inay dareynaysa inay ka qayb gashaa human information iyo waxyaalo looga baahan yahay inuu sameeyo si arrintaas ugu suurto gashaa aan u gudbinaa marka saasay ku timaadaa laakiin cid gaaro dhabarka la taabtaa ma jirto gabagabadii hadda joogna in shirkii muhiimadiisa waa soo dhamaatay maxaa kaaga baxay gudoomiyaha maxaa Soomaaliland mustaqbalka halkee uga soo gudubtaa marka xiriirka Jarmalka Soomaaliland horta guud ahaan waxaan filayaa waa shirkii labaad ee noociisa ah ee Soomaaliland u qabsoomay kii hore waxaa 2014kii London UK ayuu ka dhacay madaxweynaha hogaaminayay waftiga Soomaaliland ujeedadiisuna intan u bayhay qabanqaabadiisu runtii way ka ballaarnayd waana ka waafsanay muxuu ahaa kana waa kii labaad isku ujeedaan in anagu aanu ka lahayn taa laga lahaa ka dhacday UK ayuun baa kana laga lahaa runtii dibudhicii markii aan weydiinay organizerka waanu arkayaa inay muxuu ahaa runtii sharikadihii iyo dadkii muxuu ahaa ay ka soo qayb galaan ee markii hore danaynayay shirka liiskooda aan haynin in badanoo ka mid inaana iman runtii waxaa muuqatay markii laba jeer dhilay dhacay laga yaabo qaarkood iyagoo buukii hoteelkii wax walba samaystay oo ku talagalay shirkii dee markii ugu dambeysay loo sheegay inaanay arrintaas shirki baaqday waxaa laga yaabaa in badanoo ka mid muxuu ahaa maalgashadayaashii ama shirkadii Jarmalka inay kalsoonidii ay ka lunto dabeedna dubadhaco aanay keentay inay maartay ishaada maantana dhici maayo taasaa keentay markaa shirkado badan oo iman lahaa inay baaqdaan laakiin guud ahaan sida idinku badda arkayseen message-kii aanu sidnay
waxaan isleeyahay wuu baxo si waafiya ayuu u baxay inkastoo sectoriska qaar aad u muhiim ahaa dadkii matalayay ay naga habsaameen sida kalluunka oo kale oo arkayseenoo 2 shirkadood oo loo soo xulay inay matalaan labadiba way baaqdeen ujeeddo waliba marka aanay ii soo sheegin ayay ku baaqdeen meesha gelina okay weydii nine weydii gudoomiye markii laga tagay shirkan guud waxa jiray in kulamo kale oo adiga wasiirada xukuumadda ka socda hay'ado kala duwan oo dawladda shirka mid la soo qaateen kulan ka mid magaalada Franco ka soo qaateen maxaa ay kulanada soo daaranaa in information ugu kordhin kartaa kolley muxuu ahaa hay'adada official oo dawladda ay haayeen marka arrimaha runtii muxuu ahaa dee private ahayn ama runtii anuga authorizer ku ahay inaan warbaahinta u sheego ayaa laga wada hadlayay laakiin guud ahaan dee muxuu ahaa sidii dalka xiriirka ka dhexeeya Jarmalka iyo Soomaaliland oo ogsoontiin dawladda Jarmalku imika mashaariic fara badan ilaa 5 mashruuc ayay maalgashi ku samaysay Soomaaliland ka mid yihiin biyo-gelinta Hargeysa xagga muxuu ahaa deegaanka wadooyinka qaar wadada u dhaxaysa Hargeysa iyo Gabiley muxuu ahaa ilaa 5 mashruuc ayay runtii ay gacanta ku hayaan ama wax ka bixiyeen inkastoo ka biyo-gelinta Hargeysa ugu weyn yahay marka runtii waxaanu ka dareemaynay inay danayn fara badan ay ku qabaan muxuu ahaa kolley qaar baa ku jiray Soomaaliland tagay waxay noo sheegayeen inay muxuu ahaa isbedel badan oo ku dhacay markii ay Soomaaliland tageen imankana waxay ballan qaadeen runtii inay muxuu mashaariic waaweyn Soomaaliland oo macaawino dawladda Soomaaliland la siinayo inay muxuu ahaa ay samayn doonaan waa sugaynaa laakiin danayn fara badan iyo fahan ay soo fahmeen Soomaaliland iyo Soomaaliya wax kale ayaan runtii kada xaqiiqi arrimahaas salaam weli waxaan ku guda jirnaa wareysiga aan ka qaadano in ganacsatada reer Soomaaliland ay ka soo qayb galay shirkan ganacsiga Soomaaliland iyo ka dhaxeeya waddanka Germany ee maanta ka furmay magaalada Berlin aan ku sugannahay in halkan waxa fadhiya aadan baradho oo isagoo ah gudoomiyaha ama maamulka guud ee ownerkaba ah shirkadda Adco Group of Company oo fadhigagu yahay magaalada Hargeysa in aadan waan kugu soo dhaweynaa telefishinka Home Cable TV bal waxaad nooga warantaa dareenkaaga ku aadan shirkan maanta ka furmay magaalada Berlin ee ganacsiga Soomaaliland iyo Jarmalka alxamdulillah marka hore aad baa u mahadsantihiin qoladina Home Cable ee halkan nagu soo booqatay naga soo qayb gashay shirkan haddii aan kaaga jawaabo su'aasha si toos ah waxa weeye shirkan runtii si fiican baan aragti fiican baan u arkaa waxaana ay Soomaaliland ka faa'iideysaa dhinaca siyaasadeed iyo dhinaca dhaqaale way ka faa'iideysaa dhinaca siyaasadda markay ugu liidato waxa weeye horta marka hore warqadda la inagu soo casuumay Soomaaliland German day baa ku qoran magaca Soomaaliland si kale ah buu qoran yahay Soomaaliland German marka waxa weeye waxa way ictiraaf dadban iyadoo oran kartaa marka labaad waxa weeye meedihii ay gelaysaa shirku gelayaa muddada shirku socda ama muddada laga hadlaayo magaca Soomaaliland dad badan oo aan hore u maqlaya oo ay dhugooda ku soo dhacaysaa marka dhinaca siyaasiyan faa'iidooyin buu halka ka leeyahay dhinaca dhaqaalena waxa weeyaan dad inay wax kala faa'iidno ay doonayaan ama sunnimi dal weyn oo dalalka adduunka ugu dhaqaalaha badan la kamid ah weeno ayaa shirkay noo qabtay marka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa inuu midho dalkeeno insha Allah taala waa tahay aadan shirkadaadan Adco Group of Company ee maanta matalasid ee halkan u timid waddanka Germany intii aad ku sugnayd shirkani kulamo la yeelatay digaaga ganacsatada waddanka Germany laakiin maxaad isla soo qaadeen waxa weeye waan la yeelanay waan la yeelan doonaa insha Allah qaar kalena markay ugu leeyahay torta waxa weeye isbarasha la kala faa'iideeyaa waa bilow arintu midho dhalku u dambeeya waxa weeye midhaha marka dhulka lagu daadiyo kadib ay soo baxaan ma aha in markiiba soo boodiyaan laakiin waa la aasaa roobku markuu helo waxa dhowtaa ay soo baxaan imika waa isbarashadii waa bilow bilowgii baan joognaa
waxaan rajeynayaa insha allah inay faa'iido ka dhalato abib waxa uu ka mid yahay raggii isagu soo qabqaabiyey kulankan amaba maalgelintan ganacsiga somalilan iyo waddanka germany wuxuuna ahaa raggii qaybta lixaad ka qayb qaatay inuu shirku ka dhaco waddanka germany gaar ahaan barlin waan kugu soo dhoweynaynaa honkable t v bal ka waran dareenkaaga siduu shirku u socdo ma muuqataa shirkani inuu miradhal sii noqon doono بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa horta waxaan u mahadnaqayaa bahda warbaahinta home cable tv oo danaha Soomaaliya mar walba caalamka meel walba ka soo deysa aad baan ugu mahadnaqayaa horta waxa weeyaan shirkani waxaan aanu shakhsi ahaan aanu arkaa waxa weeyaan mid Somaliland horta u keenay xag dhaqaalana u keenaya xag aqoonsina u keenaya maanta baa mushtarigeeni iyo baa mushtarigii Jarmalka meesha ku kulmaya waxaanu ka filaynaa halka saldhiggii ugu horreeyay aynu sameeyno oo aynu halkaana ka sii anbaqaadi doono in sanad walba la kulmo oo ay ka soo badanayaan sharaa'iga iyo muxuu ahaay dadka doonaya inay maalgeliyaan Somaliland taasina mar walba waxa ay inaga inoo faa'iido tahay xag dhaqaale xag siyaasadeedba oo waddankeena wax ku soo kordhinaya marka daana kulli joint ventures baanu maartay aan labada dal horumarkooda ayaanu doonaynaa inaanu sii adkayno waana dhagax dhigi insha Allah sanad walbana waanu qabanaynaa waanu ka sii ballaaranaya labada dhinacba faa'iido aad u ballaaran baa ugu jirta